salaamullaahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walbo muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku soo qaadan doonno wararkii ugu dambeeyey ee taagan waqti xaadirkan waxaana qayb ka noqon doona mucaashaqiinta Chelsea oo la anfariiray tilaabo ay qaadeen madaxda xagga suuqa maanta oo maalin dahabi ah u noqonaysa taageerayaasha United kadib markii kooxdooda ay ka wacdaraysayba suuqa xagaygan iyo waxa ka cusub Man City, Arsenal ilaa iyo Barcelona iyo warar kale aad u xiiso badan balse marka hore ha iloobin inaad like sarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow qalbi furan mahadsanid kooxda ugu guulaha badan tan iyo markii la bixiyay magaca horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska Man United waxay shaacisay in kubadburburiyaha Real Madrid ay gacanta ku soo dhigtay ugu dambeyntii laacibka reer Brazil haatan iyo wixii ka dambeeya wuxuu sugayaa inuu maro tijaabada caafimaad iyo inuu helo dalkugalka UK lacagta United laacibkan 30 jirka ah ay ku soo iibsatayna waa 60 milyan oo euro iyo 10 milyan oo ku xirnaan doonta qaabyareedka uu ku soo bandhigo kooxda ku ciyaarta tiyaatarka riyada ee Old Trafford warkan ayaa wuxuu dhiirigelin u yahay taageerayaasha United kuwaasi oo qaab musiibo ah ugu bilowday xilli ciyaareedka cusub mana jiro qaab lagu qeexi karo sida liidata oo ay u ciyaartay labadii kulan ee dahfurka u noqonayay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kooxda ay sida weyn u taabacsan yihiin laakiin waqti xaadirkan waxay dareesan yihiin in la xaliyayba dulduleeladii qadka dhexe Casemiro ayaana sida ku noqdayba laacibka shanaad ee ugu mushaarka badan ciyaartooyda qadka dhexe ee qaaradda Yurub kaliya waxa ka horeeya Frank de Jong oo Barcelona ka qaata 472 toddobaadkii Kevin oo isna City ka qaata 400,000 Sergio Busquets oo Barcelona ka qaata 356,000 Toni Kroos oo Real Madrid kaga xisaabtama toddobaadkii 355,000 Casemiro isna United wuxuu ka qaadan doonaa 350,000 oo gani toddobaadkii xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa hal kulan oo ganaax ah iyagana dusha u saaray tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel kadib markii ay isku dhaceen Antonio Conte kulankii noqonayayba derbiga London ee ka dhacay gagada caalamiga ah ee Stamford Bridge FA ayaana ku eedeeyay labada tababaraba inay jibiyeen meelna ay kaga dhaceen sharciga E3 waxaana mid waliba la saaray iqaab lacageed oo kala duwan hase yeeshee Tuchel ayaa loo raaciyay in kulan uu ka maqnaan doono Chelsea Thomas Tuchel oo 48 jir ah ayaana lagu xukumay inuu bixiyo 35,000 oo gani oo ganaax ah iyo maqnaanshaha hal kulan waxaana uu maqnaan doonaa ciyaarta Leeds United ee Sabtida ama midda xigta oo ay la ciyaari doonaan Leicester City waa haddii uu racfaan qaato tababaraha reer Talyaani ee Antonio Conte oo isna ka badbaaday in laga ganaaxo ciyaaraha ay ciyaarayso kooxdiisa waxa kaliya ee dusha loo saaray inuu bixiyaba aduu lacageed gaaraya 15,000 oo gani waxaana labada tababare ay haystaan fursad ay ku qaadan karaan racfaan haddii loo qaadan waa uu ku noqdo ganaaxyadani dusha loo suray waxa isa soo taraya sidoo kale wararka ku qotama Liverpool iyo laacibka da'ada yar ee Jody Bellingham sida laga soo xigtay jariirada caanka ah ee Daily Mail xidiga heerka caalami ee ka soo jeeda England waxa la filayaaba inuu ku biiro kooxda ka dhisan gobolka Merseyside xagayga soo aadan waana sababta ay Liverpool diyaar ugu tahay inay qaab bilaasha isaga fasaxdo Naby Keita ciyaaryahankani heerka caalami ee ka soo jeeda xulka saddexda libaax wuxuu qandaraaska haatan kula jiro kooxda Borussia Dortmund uu dhacaya xagayga 2025 waxaana mushaar ahaan uu u qaataa ku dhowaad 50,000 oo gani isbuuci laakiin markan iyo wixii ka dambeeyaba waxa loo siyaalaynayaa in xagayga soo aadan ee suuqyada Yurub uu u soo weecan doono xagga iyo gagada caanka ah ee Anfield Chelsea iyadana xalay waxay heshiiska shakhsiga ah la gaadhay Pierre-Emerick Aubameyang kadib markii kulan ay la yeesheen wakiiladiisa sida uu xaqiijiyay qabiirka dhanka suuqa ee Fabrizio Romano inkastoo ciyaaryahankan uu heshiiska shakhsiga ah la gaadhay Chelsea haddana caqabad xooggan ayaa weli hortaala kooxda ka dhisan galbeedka London oo ku qotantaba inay gacanta ku soo dhigto orodheeraha reer Gabon
waayo Barcelona ma doonayso Chelsea inay siisaba lacaga badan. kooxda reer Spain ayaa kabtankii hore ee Arsenal si bilaasha ku heshay bishii Janaayo, waxaana ay dalbanaysaa inay ku ilowdo adduun lacageed gaaraya 30 milyan oo gani si lacagtaasi ay ugu caawiso diiwaangelinta difaaca dhawaan ay kala soo wareegeen kooxda Seville ee Jules Koundé. laakiin Chelsea dhankeeda waxay ku adkaysanaysaa inaysan bixin karin lacagaha ay dalbanayso kooxda ka dhisan magaalada madaxda gobolka Catalonia ee Barcelona. Taabadalkeedana kooxda ka dhisan galbeedka London ayaa diyaar u ah in Aubameyang ay ku hesho adduun lacageed gaaraya 15 milyan. haddii lacagta intaasi ay ka badan tahay Chelsea diyaar uma ahanba inay soo qaadato orodheeraha reer Gabon oo waa ay kasali doontaa wadaxaajoodiyada ay la galeen wakiiladiisa. tababaraha kooxda Man City ee Pep Guardiola isna wuxuu shaaca ka qaaday in Calvin Phillips iyo sidoo kale Palmer labadaba ay diyaar u yihiin kulanka Axadda ay la ciyaari doonaan kooxda Newcastle United kadib markii kulankiisii ugu horeeyay uu u saftay isagoo bedel ku soo galay ciyaartii West Ham. saxiixa xagaayigan ee Philippines kuma lug lahayn ciyaartii 4 iyo waxba ay kaga badiyeen Bournemouth, isla markaana ay bareen sida ay tahayba in loo ciyaaro Panoniga. Philippines iyo Palmer ayaa sidoo kale ka soo muuqday kursiga kaydka kulankii West Ham kadibna waxa ay sheegeen guushii ay ka gaareen Bournemouth sababa ku qotoma inay qabeen dhaawacyo kala duwan. laakiin haatan waxaa loo filayaa inay qayb ka qaadan karaan ciyaarta ay St James Park kula ciyaari doonaan Newcastle United. ixtiraam darada mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi ku haysata kooxda Paris Saint-Germain iyadana waxaba la dhihi karaaba waa mid halkeedii ka sii socota. tababaraha kooxda PSG ee Christophe ayaana ciyaartooyga koobaad ee rigoorada u tuuri doona kooxda caasimada Faransa u doortay Kylian Mbappé, waxaana la rumaysan yahay in awoodahani badan laacibka reer Faransa ay siinaysaba qandaraaskii uu qalinka ku duugay bishii May. Neymar Jr ayaa isagana noqon doona ciyaartooyga labaad ee rigoorada u tuuri doona kooxda Paris Saint-Germain. haddii kooxda ay heshana 2 rigoore waa ay kala qaybsan doonaan Mbappé iyo Neymar. halkaasina waxaaba ku qasanba laacibka reer Argentina ee Lionel Messi. taageerayaasha Chelsea ayaa wadnaha farta ku haya kadib markii jariirada Daily Mail ay qortay in Chelsea si lama filaan ah ay ugu dhaqaaqayso saxiixa Harry Maguire maadaama shaki weyn la gelinayo mustaqbalkiisa kooxda magaalada Manchester. xidiga Ingiriiska wuxuu ka walwalsan yahay booskiisa shaxda United ee kulanka Liverpool. hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay waxay caddaynayaan inuu soo jiitayba dareenada madaxda xagga suuqa ee kooxda ku ciyaarta gagada caanka ah ee Stamford Bridge. Chelsea sidoo kale waxay si weyn ugu shaqaynaysaa inay dhamaystirto saxiixa laacibka kooxda Leicester City ee Wesley Fofana. wargeyska Daily Mail ayaa ogaaday in Chelsea ay ka fiirsanayso in magaalada madaxda Ingiriiska ee London ay keento Harry Maguire, waxaana ay doonayaan inay qayb ka dhigaan heshiiska United ay ku doonayso Christian Pulisic. waxaana la fahansan yahay sidoo kale muhiimadda koobaad ee Chelsea uu u leeyahay inay helaan Wesley Fofana. difaaca reer Faransa ayaa xitaa maamulka Leicester ku wargeliyay inaysan ku darin liiska ciyaartooyda ee ka hortagaysa kooxda Southampton. Bellerin dhankiisana wuxuu diyaar u yahay isla markaana uu aqbalay in mushaarkiisa uu hoos u dhigo si uu qayb uga noqdo kooxda ku ciyaarta gagada caanka ah ee Camp Nou. Barcelona dhankeeda waxay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd difaaca heerka caalami ee ka soo jeeda dalka Spain maadaama ay doonaysaba inay ku xoojiso awoodeeda dambeedka midig. laakiin Bellerin wuxuu noqonayaa laacib laga nacaynayo waqti xaadirkan kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal. Man United dhankeedana waxay qarka u saaran tahay in Barcelona ay ka afduubato difaaca midig ee kooxda Mallorca Van der Son. kooxda lagu naneeso shiyaadinta cascas ayaana ku wargelisay Mallorca inay diyaar u tahay inay kordhisaba dalab kasta oo Barcelona laacibkan ay ku doonayso. 21 jirkani reer Brazil ayaana waqti xaadirkan wuxuu ku soo baxayaa liiska magacyada United ay ka doonaysaba suuqa xagaayigan. United wararkeeda intaasi waxay ku darayaan inay u dhaqaaqday waqti xaadirkan Carrasco ka oo ay doonaysaba kooxda ugu guulaha badan horyaalka Premier League ee dalka
Ingiriiska inay ku soo qaadato adduun lacageed gaaraya 25.5 milyan oo gani. United waxay horay ugu soo guuldaraysatay Gakpo iyo sidoo kale bartilmaameedkoodii koowaad ee suuqa xagaygan Anthony, kaasoo kooxdiisa Ajax ay dalbanayso adduun lacageed gaaraya 67.6 milyan oo gani. Hal kulan ayaa sidoo kale indhaha lagu hayn doonaa horyaalada ee Premier League, waana kulanka qalcadda Vitality ay ku soo dhaweyn doonto Bournemouth, kooxda ka socota waqooyiga London ee Arsenal. Arsenal waxay u socotaa kulankan inay ku tillaabsataba taariikh lama iloobaan ah, waayo markii ugu horeysay 3 kulan oo furitaan u noqonaya horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayay 11 ciyaartoy oo isku mid ah ku soo shartagi kartaa kooxda waqooyiga London, waana tan iyo 2003. duulkii awoodda u yeeshay Leicester City inay dhulka la dhacaan ayaanba halna laga badali karin. Saxiixa cusube Fabio Vieira ayaa taam ah, waxaana laga yaabaa inuu saftaba kulankiisii ugu horeeyay ee Premier League, halka sidoo kale Cedric Suarez iyo Smith Rowe iyagana ay diyaar yihiin. Bournemouth ayaa badisay kaliya hal kulan 10kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay la ciyaartay Arsenal, iyadoona ka qaabishay 2 barbardhac iyo 7 guul daro. Arteta kulankiisii ugu horeeyay ee tartan rasmi ah uu hogaamiyo Arsenal wuxuu barbardhac gool ah la galay Bournemouth, waana maalintii Boxing Day-ga 2009 kaasoo ahaa kulankii ugu dambeeyay ee labadani kooxood ay isku wajahaan horyaalka ugu xamaasadda badan 5 horyaal ee laga ciyaaro qaaradda Yurub. La Liga Spain waxaa si weyn loola socon doonaa kulanka dhexmari doona Real Madrid iyo Celta Vigo. Tchouaméni oo xagaygan ku soo biiray Real Madrid ayaana la filayaaba inuu la wareegi doono kaalintii uu bareeyay Casemiro, ka oo u weecdayba Man United. Casemiro ayaanan qayb ka noqon liiska ciyaartoyda uu u soo xushay kulankan macallimu Carlo Ancelotti, ilaa ninku waaba United. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixinadan ilaa iyo dhammaadkooda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.